madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood salaadii hore ee Saaka iyagoo u sii dhaafay jiida hore ee ciidamadu fadhiyaan waxaanu 7 kiiloomitir xagga u dhaafay bariga xigta magaalada Tukaraq oo bariyahanba uu muran ka taagnaa halkaasi oo uu kula kulmay saraakiisha ciidamada isagoo booqday aagaga iyo fadhiisimada ciidamadu ay ka fadhiyaan dhulkaasi halkaasi hadal uu ka jeediyay ayaa waxa uu ku sheegay inay ciidamadu ku nagaadaan bartooda halkaana aanay dhaafi karin ilaa iyo amar dambe uu yiri waxaana uu safarka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uu helinayay saraakiil ciidamada oo uu kamid yahay jaranka guud ee ciidamada sareeya gaas Nuux Taani iyo wasiirka gaashaandhiga iyo rag kale oo wasiiraa waxaana hadaladii halka laga jeediyay saraakiisha ciidanku kaga hadleen si qaabka ay meesha u galeen iyo waxyaabaha ay filan karaan iyo dardaarankii madaxweynuhuna wuxuu dhacay sida goobta ana imiga taliyaha jiidani halkan joogno waxaan leeyahay ciidanka qaranka ee jiidan ku sugan waxa uu harsan xuduudii 7 kiiloomitir ayaa noo harsan xadkii Soomaaliland ay lahayd degmada madaxweyne halkan waxa jooga ciidankii qaranka dowladda Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisa qaran halkan naga soo horjeedana waxa jooga ciidamo badan oo lagu soo kordhiyay kulli anagu wax dhiba labada dhanba dib lama xaqo kuwaasna waa dadkeedii wax dhiba lama rabno laakiin waxa weeyaan waxa la isla maandaafiyan xaween war xadkeedii baan tagay iyo tagameys imika waajibkeena koowaad waxa weeyaan halkan inaan joogno walaalihiina waxa leenahay annagu halkaas aan joognaa wixina nabadan ku dhamaysanay aan leenahay aan joognaa jiidkii ugu horeysay ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliland oo u jirta magaalada Tukaraq 7 kiiloomitir xigtana dhinaca xuduudda sidii laga dhawaajiyay wali xuduudeena waxa aynu jiraa in ka badan 70 kiiloomitir 70 kiiloomitir in xuduudeena u jiro waxaynu uga joognaa oo hadda uga maqannahay reerin nabadgelyo iyo inaynu kala badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha nahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil ay socon doonaan inoo dhimo ka dhiman dalkeena waxaynu uga joognaa inagoo dhowrayna in dhibaato halka ka sii dhacdo in madaxweyne maanta degan oo maartay walaalaha Soomaaliyeed jaarka nahay inay dhibaato ku timaado ayna jecelayn dhankeeda soo baxatay inaan macni wax talaabo ay isku ognahay oo ah difaaca halka joogtaan mahayna ka baxsanayna ku talaabsan baad ku dhigay aad iyo aad ku hambaleyna runtii shaqada badan haysan jaranka iyo saaxiibadiisa kale dhammaan iyo dhammaan min taliye ilaa iyo maartay askari